19 bishii labaad ee sanadkan 2017 madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa soo saaray go'aan dalkiisa uu kaga mamnuucayo muwaadiniinta 7 dal oo muslimiin ah oo dalka Soomaaliya uu ku jiro. Waxa go'aankaasi uu saameeyay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo ku sugnaa gudaha dalka Mareykanka balse aanan helin sharciga dalkaasi kuwaas oo dib dalka loogu soo celiyay kana soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International ee magaalada Muqdisho. go'aanka ayaa markii dambe xayiraada looga qaaday dalka Iran waxaana ka hor yimid maxkamadda federaalka ee dalka Mareykanka. Haddaba go'aankaasi waxaa la sheegay inuu ka dhaqan galayo gudaha dalka Mareykanka iyadoo 6 wadan oo horey looga mamnuucay gelitaanka dalkaasi la sheegay in iminka arrintaasi ay saameyn ku yeelan doonto. siyaasi Jaamac Xasan Qariif oo ku sugan gudaha dalka Mareykanka ayaa ugu horeyn la wadaagaya dadka uu saameynta uu ku yeelanayo go'aankan. dadka Soomaaliya uu saameynaya horena waa u saameeyay tarxiilkan dadka la celinaya Mareykanku celinayaan kulli dood badan baa ka socota laakiin waxaan ugu duceynayaa ummadda Soomaaliyeed iyo dadka wadankooda ay u jeclaysiiyo dhibaatada ay ka saaro qofkii la celiyana ha aamino wadankiisa dhugsada dadkiisa ha aamino wixii caawin kara dhalinyarada dejin karaan hadda shiyeen haday qoyskooda tahay iyo haday dowladda tahayba marka waxaan aad iyo aad Ilaahay baan ugu baryaa subxaanahu wa ta'aala ummadda wadankooda u jeclaysiiyo. qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa dhankooda waxa ay sheegeen aragtiyo kala duwan ay ka dhiibteen go'aanka madaxweyne Donald Trump oo ku aadan in muwaadiniinta doonaysa dalkaasi Mareykanka inay galaan ee Soomaalida ah saameyn uu ku yeelan doono waxaana rajabeel ay ku riday arrintan dad badan oo Soomaaliyeed oo ku sugnaa xeryaha qaxootiga kuwa oo garitaankooda Mareykanka ay wax yar un ay ka dhinaayeen. siyaasi Jaamac Xasan Qariif waxa uu qabaa aragti ku aadan in dadka Soomaaliyeed ee laga soo celinayo dalka Mareykanka dawladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed bay u diyaariyaan goobihii ay ka shaqeysan lahaayeen mar haddii laga soo celiyo dalka Mareykanka isagoo sheegay in dalka Soomaaliya uu u baahan yahay dhalinyarada la soo celinayo taasina ay tahay arrin wanaagsan oo looga hortagayo tahriibka ay sameynayaan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed. dadka la soo celinaya bay isugu jiraan dad iyagoo aan baasaboorka qaadan dhalashada wadankan qaadan ama dambiga galay ama aan buuxin shuruudihii ay ku joogi lahaayeen wadanka iyo dad aan sharci la'aan oo si sharci darro ku soo galo la qabtay oo waqtigan la kulmay maamulka cusub labada qolo ay inta badan qof dambi galay oo isagoo aan baasaboorkii wali gaarin iyo dhalashadii wadanka qaadan lagu fuliyo sharci ah inuu wadanka u joogi karin iyo dad cusub oo iyagoo tahriibayaal ku soo koray si sharci darro ku soo galay wadanka labada qolo way inta u saameynaya ugu waaweyn. madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay 7 dal ee uu ka mamnuucay gudaha dalka Mareykanka in gudaha ay u galaan ay Soomaaliyana ay ku jirto in saameyn aan wanaagsaneyn ay ku yeesheen horumarka dalka Mareykanka ka jira.